السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا السلام أصحابتي إذا قال جادل يدبد ميشات كجوكتي وولاشين ديقو جانل كيغان واديق حلنا مانت وحان إذين دميسترايا يعني هادو حييتهاي بعد العصر waxaan idin dhammaystirayaa sheekadii saaxiibadii isqayaanay ayaa idin dhammaystirayaa. Saaxiibadana way dhib badan yihiin. Marka hore gabadhaas saaxiibadeeda ayaa ku kalsoonaan jirta si weliba naxariis iyo wanaag ku dheehan. Saaxiibadeedii ayaa qayaantay. Qisadii qaybtii hore inaad daawateen ayaan u maleynayaa saxaabey. Waxaana soo duubayaa qaybtii labaad. gabadhii sidoo ayay ku tiri saaxiibadii waxay tiri aniga wax ma xasuusto. Dhakhtarkii ayay ku tiri waxa ma xasuusto ehelkayga iyo qaraabadeyda intaba ma garanayo meel aan u raadiyo ama meel aan u baadi goobo ayay tiri mana aqaano waxa aan sameeyo maadaama la waayay ayay tiri shahaadooyinkaygii iyo weliba dhalashooyinkaygii mana garan kara ayay tiri meel aan arrin ka bilaabo waana ay igu adag tahay ayay tiri in aan arinteyda aan xaliyo ayay tiri. Marka waxay tiri gabadhii hadda wax hal ah ma jiro miya ayay tiri nolosheydana aan hore ugu maareyn karo ayay tiri gabadhii. Wuxuu yiri dhakhtarkii inta aad doonto gurigayga isaga noolow inta aad ka helayso hamiga aad nolosha ka leedahay ima aad helaysid ehelkaaga iyo weliba qaraabadaada ayay ku yiri dhakhtarkii. Gabadhii waxay tiri waayahay. Wuxuu geeyay gurigiisa dhakhtarkii wuxuuna ku yiri inta ku noolow inta ilaa xilligii aad doonto adiga ku noolow ayuu yiri halkaan inana joog gurigayga ayuu yiri dhakhtarkii sababta oo ah malihid ayuu yiri qoys ama dad ehel ah oo lagugula xiriiriyo sida aad ula noolaato because weli xaaladaada caafimaad aad ayay u liidataa ayuu yiri dhakhtarka. Raali ahaada saxaabey wadda ayaan saaranahay. Marka wuxuu yiri xaaladaada caafimaadkana ma wanaagsano inta aad kasoo wanaagsanaanayso waxaa habboon inaad ku noolaato gurigayga. Waayahay ayay tiri gabadhii. Wuxuuna geeyay gurigii ayuu geeyay xaaskiisa ayuu wuxuu ku yiri marti ayaa noo keenay martidan waxaan u baahanahay in aad ula dhaqanto si wanaagsan oo naxariis ku dheehan tahay ayuu yiri. Waxay tiri martidii xaggaaga ka socoto waan soo dhaweynayaa ayay tiri weliba gacmo furan soo dhawow ayay tiri martideena ayaa tahay maadaama aadna meeshaan ku cusub tahay waxaan kugu soo dhaweynayaa gacmo furan iyo weliba weji furan iyo weliba qalbi furan ayay ku tiri dhakhtarkii xaaskiisa. Gabadhii waan dhawahay ayay tiri waana ku mahadsan tahay sida wanaagsan aad ii soo dhaweysay ayay tiri waa ku mahadsan tahay. Waayahay ayay tiri dhib malahan qof waliba oo gargaar u sameeyo qof bini'aadana maalin ayuu heli doonaa abaalkiisa ayay tiri naagtii dhakhtarka qabay. Waxay tiri dhib malahan maalin ayaan idin gudi doonaa ayay tiri abaalkiina mana aqaano waxaan idinkugu abaal gudi doono. Gabadhii waxay isaga nooleeday gurigii dhakhtarka ilaa caafimaadkeeda uu ka wanaagsanaanayo. Markii gabadhii saaxiibadeedii kale maba ay soo baadi goobin mana soo raadinin sida foosha xun ayay ula dhaqantay waa ayna isaga dhaqaaqday sababta oo ah saaxiibadeeda ma ay qadari jirin mana ay qiimay jirin. Markii ay lacagta heshay kadib way isbedeshay waxayna la soo baxday weji cusub oo nooc kala ah laakiin markii ay faqiirka ahaayeen ee labadoodaba xaaladda xun ay ku wada sugnaayeen way u naxariisay jirtay weliba gargaar aad u wanaagsan ayay u fidi jirtay saaxiibadeeda qaaliga ah. Waxaa bedeshay lacagta. Marka gabadhii waxay iska gashay magaaladeeda ayay iska gashay dibna umay soo raadinin saaxiibadeeda qaaliga ahayd
weligood isla noolaayeen, dhib iyo dheef ay isla qaybsadeen, xeryaha agoomaha iskula jiri jireen. Dib dambe umayna soo raadinin. Waxay dhacday hantidii saaxiibadeeda, waxayna la gashay magaalada. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabadhii waxay guursatay nin hantila ah. Ayay guursatay gabadhii oo saaxiibadeeda qayaantay ayaa la guursaday. Waxayna guursatay nin kale oo hanti leh haysto micna ama hanti taajir ah. Ayay guursatay gabadhii. Waxayna ku tiri aniga waxaan ahay gabar taajirad ah, mana rabo in aan ku noolaado nolol faqri ah. Haddaan guursanayo ama aan mustaqbal yeelanayo, waxa aan jecelahay ayay tiri in aan guursado nin laybarkayga ah ama meesha aan taaganahay ila istaagi kara, ayay ku tiri gabadhii. Wiilkii guursanayay wuxuu yiri anigaba kaama liito, waxaanan haystaa hanti igu filan inta cimrigayga ka dhiman, ayay tiri. Waayahay ayuu yiri, waan isguursanaynaa. Wuu guursaday gabadhii. Waxay dhashay gabar ayay u dhashay ninkii. Gabadhii markay gabadhii dhashay waxay tiri gabar ayaan dhalay, waad ogtahay mana shaqayn karo hadda kadib. Aniga waxaan samaysanayaa shaqaale iiga shaqeeyo goobtayda shaqada aan ku leeyahay, ayay tiri. Waxay tiri shaqaale in aan soo raadsado ayaan u baahanahay oo iiga shaqeeyo, ayay tiri, kambanigayga. Waayahay ayay tiri. Waayahay ayuu yiri ninkeeda, waa idinka qalday, sorry. Bes wiilkii iyo gabadhii waxay soo raadiyeen shaqaale aad u wanaagsan, daacad ah oo u xafidi karo hantidooda. Hore ayaa waxaa loo yiri god sireed ha qodin, haddaad qodana ha dheeraynin, ku dhici doontideena lama ogo. Gabadhii kale oo hantida runta u lahayd ayaa waxay soo aaday magaaladii ay ku nooleeday saaxiibadeeda. Saaxiibadii hantideeda ka dhacday way ku nooleed ayay soo aaday. Waxayna tiri dhakhtarkii ay la noolaan jirtay aniga hadda xaaladayda caafimaad ayay u wanaagsan tahay. Waxaanan doonayaa inaan magaalo aado oo shaqo raadsado oo magaalada iyo jawiga kala barto ayaan doonayaa, ayay tiri. Wuxuu ku yiri waa arrin wanaagsan, soo shaqayso haddaadba awoodid in aad shaqaysatid. Waayahay ayay ku tiri. Gabadhii waxay imaatay magaaladii ku nooleed saaxiibadeeda. Waxayna raadsatay shaqo aad u wanaagsan sababta oo ah luuqadda way taqaanay, laakiin xagga xiska ayaa wax ka noqotay markii ay ku dhaceen shilka gaariga. Markay shilka gaariga gashay, wax waliba oo horumarkeeda ama nolosheeda hore ahaa way ilowday. Waxay tiri shaqadii ayay raadsatay gabadhii. Waxay tagtay meel kambani ah. Waxayna tiri waxaan u baahanahay shaqo, waxaan qaban karaa, ayay tiri, shaqo walbo oo qof bini'aadan ah qaban karo. Waxaa la yiri wax ma baratay? Waxay tiri haa, yaraanteedii iskuul ayaan soo dhameeyay iyo jaamacada, laakiin hadda wax shahaado ah ma haystii. Aniga dhibaato ayaa igu dhacday, shil ayaanan galay. Marka shahaadadeedii iskuulka iyo wixii aan haystay dhammaantooda waa iga wada lumeen. Hadda waxba gacanta kuma hayi, ayay tiri, laakiin wax waliba oo lee dhiibo waan ka shaqayn karaa, ayay tiri. Haddaa rabto sekreteerida waa kuu noqon karaa, ayay tiri, ama caawisada shaqada waan kaa noqon karaa. Micnaha qofka markuu meel ka shaqeynayo amba kambani ama agency wuxuu samaystaa gacan yaro sidaa u taqaano, ama secretary qofka oo gacan yaradiisa ah. Marka wuxuu yiri wiilkii soo dhawow abaayo, shaqo waa lagu siinayaa. Wiilkii kambaniga joogay wuxuu yiri soo dhawow walaashay, foomkan buuxi, shaqadaadana waa diyaar. Gabadhii shaqadii foomkii ayay buuxisay, shaqadii qaban kartay buuxisay. Wuxuu yiri kombiyuutarka sida loo isticmaalo ma taqaanaa? Haa, ayay tiri, ma taqaanaa? Ayuu yiri qoraalka sida loo akhriyo. Waxay tiri wax waliba waan samayn karaa, wax walibana waan akhrin karaa, ayay tiri. Oo wax aanan garanayn ma jirto, laakiin
mar ayaa xasuusteedii iga luntay, hadda waxaan rabaa xasuusteedii tagtay in aan dib u soo celiyo, ayay tiri gabadhii. Wuxuu yidhi waan ku faraxsanahay maadaama aad ka badbaaday, ayuu yidhi shilka aada u xumaa, ilaahayna uu ku badbaadiyey. Haddana waxaan kuu rajeynayaa horumarkaaga iyo hiigsigaagaba inaad gaartid, ayuu ku yidhi wiilkii gabadhii. Waayahay, ayay tiri, waad ku mahadsantahay soo dhaweyntaada aadka u quruxda badan leh. Ileen gabadha wiilka wareysanaya wuxuu qabaa saaxiibadeeda qaaliga ah, ayadana ma ogo. Wiilkii wuxuu yidhi gurigiisa ayuu tagay, wuxuu la hadlay xaaskiisa, wuxuuna ku yidhi maanta waxaan kuu soo helay miyaad garanaysaa? Waxay tiri ii sheeg maxaa waaye waxaad ii heshay? Wuxuu ku yidhi maanta waxaan kuu soo helay gabar ammaan ah oo shaqadaada sida aad doonto kuugu sameyn karto, ama aad ku farxi doonto, ayuu yidhi, arrimahaagana kuu dhammayn doonto. Waxay tiri waa arrin aada u wanaagsan xaajigayga, maasha allah, wax fiican ayaad ii qabatay, ayay tiri, waanan kaaga mahadcelinayaa. Waayahay, ayuu yidhi, dhib malahan, berri ayaan kuu balamiyey, waxaad nala yeelan doontaa wareysigii ama interviewgii ayaad la yeelan doontaa, ayuu ku yidhi. Waayahay, ayay tiri, maalintii ayaa loo balamiyey gabadhii, meesha ayay ku wada kulmeen. Gabadhii wejigeeda mayna arkin gabadhan because tan way garanaysaa, saaxiibada waxay garanaysaa because way xasuusataa inay gabadhan saaxiibadeedii hore ay tahay. Tanna ma xasuusato waxba, xusuustii oo dhan waa ay ka luntay shilka awgiisa. Labadii gabdhood meesha ayay ku wada kulmeen, saaxiibadeeda ayay wareysi ka qaaday, gabadhii weli oo ilmeynayso oo weliba aad iyo aad u ilmeynaysa calool xumoona. Markaasay wixii ku tiri abaayo intee ka timaaday? Markaasay tiri magaalo hiblaayo ayaan ka imaaday. Halkeebaad ku nooleeday? Waxay tiri hadda ma xasuusta, ayay tiri, nolosheydii hore, hadda waxaan xasuustaa nolosheyda dambo, tee wax kaaga sheega? Ayay tiri horta nolosheyda hore waxba kama xasuusta, ayay tiri, sababta oo ah shil ayaan galay, ayay tiri, nolosheydina waa ay burburtay, xasuusteydina waa ay luntay, ayay tiri, laakiin hadda waxaan xasuustaa in aan dhakhtar jiifay, dhakhtarkaas uu ii baxnaaniyey oo i daaweeyey, nolosheydii horumarkayga ka taliyey, hadda inaan noolaadana dhakhtarkaas ayaa u sabab ah. Marka arrinteeda waa taas, ayay tiri, haddana waxaan raadsanayaa meel aan ka shaqaysto, horumarkaygana aan ku gaarsiiyo heerka aan rabo inaan maanta istaago. Waxay tiri gabadhii saaxiibadeed ilaa way garanaysaa, way ilmeynaysaa. Waxay tiri abaayo maxaad u ilmeynaysaa? miyaa lagaa dhintay? Maxaa kugu dhacay? Tan wax jira moog waaye, waxay ogtahay malahan, sababtoo ah qofka ilmeynayo qof iyada aqoon u leh waaye. Xaasinimadeedana isuma sheegayso, ma dhehaysa aniga saaxiibadaada ayaa nahay, saaxiibadii ku qayaanta ayaa nahay, saaxiibadii hantidaada dhacda ayaa nahay, ma dhehayso. Waxay ku dhahday shaqo ayaan ku siinayaa, waxaan la ilmeynayana waxaan soo xasuustay waalidiinteydii hore, ayaan soo xasuustay iyo asxaabteydii hore, sidaas darteed ayaan u ilmeynayaa, ayay tiri gabadhi. been ayay u sheegtay, sababtoo ah way garanaysaa, waxayna isleedahay haddaa isu sheegtid hantideeda ayay kula qabsan doontaa, hantidaada ayayna kaa qaadan doontaa, ayay istiri. Gabadhii waxay tiri soo dhawow, shaqo ayaan ku siiyey, waxaad ii noqonaysaa qaaskayga ayaad noqonaysaa, ama sekretariyadeyda qaaska ah ayaad ii noqonaysaa, mar walbana waxaad joogaysaa xafiiskayga ayaad ka shaqeynaysaa, warqadaha aniga liisoo gudbiyo ayaa mar waliba ii kormeeraysaa, ayay tiri. Waxay tiri abaayo aniga shaqadaas uma qalma, ayay tiri, waxaana rabaa shaqo hooseyso ama laybarka ugu hooseeya inaan ka shaqeeyo, ayay tiri. Waxay tiri abaayo dhib malahan, waan kugu kalsoonahay aniga, laakiin waxaan u baahanahay, ayay tiri, in aad booskaas iiga shaqeyso, waanan ku aaminsanahay, ayay ku tiri gabadhii. Waayahay, ayay tiri, gabadhii muddo ayay ka shaqeysay meeshii gabadha ay u dhiibtay ama kursigeedii inay ku shaqeyso
muddo fara badan ayay ku shaqaynaysay gabadhii. Wax xasuuso way usoo laaban weysay. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa soo booqday gabadhii. Dhakhtarkii wiilkiisa ayaa soo booqday. Wuxuuna ugu yimiday magaaladii ay joogtay ee ka shaqaynaysay ayay ugu imaaday. Dhakhtarkii wuxuu ugu imaaday magaaladii gabadha ka shaqaynaysay. Gabadhi marka hore ay soo barbaariyeen oo micnaha shilka gasho soo horumariyeen meesha shaqada usoo doonato ugu imaaday. Marka dhakhtarkii wiilkiisa wuxuu ku yiri haye ii waran maanta maxaad haysaa, shaqo ma heshay, noloshaada iiga waran, xanuunadaada iiga waran, wax ma soo xasuusatay, wax ma dareentay, fikirkaaga ma isbedelay, waxyaabo hore oo maskaxdaada kusoo dhacay ma jiraa, waxyaabaha xasuus u leedahay ma jiraa, meesha aad ku noolaan jirta ma jirtaa, wax soo xasuusu yiri. Waxay tiri aniga hadda waxba ma xasuusan kara ayay tiri, sideedii hore ayaanan ahay, caawa wax aan xasuusan karo ma kuu sheegi kara ayay tiri wiilka saas ayay ku tiri. Wuxuu yiri dhib ma lahan, caawa waxaa ii raacaysaa dalxiis, aniga ayaana casho kuu kaxeynaya ayuu yiri wiilkii dhakhtarka dhalay gabadhii uu la joogtay. Bas waayahay ayay tiri waan kaa ogolaaday in aan kuu raaco cashada aad iga codsatay. Wiilkii gabadhii wuu kaxeeyay wuxuuna geeyay meesha cashada ahayd ama meelaha romantiga oo cashada khatarta lagu siiyo dad lamaanaha amba dadka isjecel, meelaha ay cashada ku wada cunaan oo xeebta ama webiga dhinaciisa ama banaanaha hawada macaan la jawiga aadka u macaan aad galaysa ayuu wuxuu ugu sameeyay casho aad u macaan badan, soo dhaweyna leh ayuu ugu sameeyay. Gabadhi meesha ayuu geeyay meel xeeb ah oo adiga jawi macaan ah ayuu meesha xalfada ugu qabtay, micnaha cashadii meesha ayuu geeyay, saxadii meesha dabeesha macaan ayay ka dhaceysay, cuntadii meesha ayay cuntadii ku wada cuneen, way sheekaysteen, way soo baxday gabadhii. Waxay tiri cabaar ma ku wareegi karnaa ayay tiri xeebtan quruxda badan leh, waxaan rabaa inaan wax yar ku dalxiiso, ma iga ogolaanaysaa ayay tiri inaan cabaar ku socono meeshaan. Waayahay ayuu ku yiri wiilkii dhakhtarka dhalay. Way israaceen meeshii ku cabaar kusoo socdeen. Gabadhii waxay soo xasuusatay yaraanteedii in ay meeshaan meel camal ah inay tegi jirtay, qofna ay raaci jirtay ayay soo xasuusatay, weli iyadoo mugdi ku jiro oo si kaliir u arkeynin. Waxay tiri qalbigayga ayaa isgediyay ayay ku tiri wiilkii, waxaana dareemayaa ayay tiri wareer aad u fara badan iyo weliba xasuuso igu soo noqonaya ayay tiri. Marka waxaan doonayaa ayay tiri in aan u noqono gurigeeni, marka aan iska seexan tagno. Waayahay ayay tiri wiilkii. Waayahay ayuu ku yiri na kaxeey waan baxaynaaye. Wuu soo kaxeeyay gurigii ayuu keenay. Maxaad dareemaysaa? Waxay tiri aad ayaan u fikirsanahay, waxaana dareemayaa wareer aad u fara badan iyo inay maskaxdayda isku booqsan tahay ayaan dareemayaa ayay tiri gabadhii. Waxaan u baahanahay nasiino in aan qaato, aan nasto ayaan u baahanahay ayay tiri gabadhii. Wuxuu yiri intaad doonto iska naso, aniga waxaan kuu soo laabanayaa beri aroortii hadduu ilaahay raalli ka noqdo, haddana waad iska sii seexan kartaa. Waayahay ayay ku tiri waadna mahadsan tahay, cashadii macaaneed aad geysay iyo damaashaadkii quruxda badnaa aan isla soo qaadanay waana kaaga mahadcelinayaa ayay ku tiri. Waayahay ayuu yiri wiilkii, habeenka ha kuu wacnaado ayuu yiri, wuuna ka tegay. Gabadhii subaxii aroortii waxay soo aaday shaqadeedii ayay sidii u gudatay. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa la yiri gabadhii saaxiibadeed ahayd waxay tiri maanta waxaan rabaa in aan kambanigayga kormeer ku sameeyo, aan tago, waxaan rabaa in aan qof cunuga iga reebo aan helo ayay tiri, qof gabadhayda ii haayo dhiigkeer igu noqda ama xanaaniso ayaan u baahanahay ayay tiri, inaa iisoo raadisid. Odageeda ayay u dirsanaysaa, xanaaniso gabadhayda aan uga tagto inaa iisoo raadiso ayaan u baahanahay.
oo iisi gaarsiiso inta aan kambaniga soo kormeeraya ama meeshii goobtayda shaqada, ayay ku tiri odageeda. Wuxuu yiri haa, xanaaniso fiican ayaan ogahay, aadna u xanaanay taqaanuu yiri caruurta. waa tuma ayay ku tiri. Wuxuu yiri haa, gabadha kambanigeena ka shaqaysa waa gabar aad u naxariis badan, ubadkana aad u jecel, ayay tiri. Waxaanan dareemayaa in aad gabadhaas ka heli doontid caawa, intaad kasoo noqonaysana gabadhaas ayaa barbaarasho wanaagsan kuu noqon doonto, ayada soo kaxaysa, ayuu yiri. Ha kuu noqoto barbaarisadaada gabadhaada kuu sii hayso. Waayahay ayay tiri, iikaan beri subaxi caawa gurigeena ha iska barido, berina cunugta sida aan uga tagto. Waayahay ayuu yiri. Gabadhii ayuu u sheegay. Wuxuu yiri arrin yar aan rabaa inaan kaa codsado inaad ii samayso. Markii waxay tiri maxaad iga codsanaysaa, maadaama aan ahay shaqaalahaaga, waxaad rabto ayaan kuu sameynayaa, ayay tiri gabadhii. Wuxuu yiri xaaskayga waxay u baahan tahay barbaariso ama daycare saa u taqaano. Markii wuxuu yiri barbaariso ma noo noqon kartaa ilaa iyo caawa ayaan u baahanahay, berina fasax ayaa iska tahay. Waxay tiri waayahay, waan idiin haynayaa gabadhiina, halkeen ku hayaa, ayay tiri. Ma gurigayga ayaad keenaysaa mase gurigaaga ayaan kugu hayaa? Wuxuu yiri gurigayga iigu imow beri saacadu markay tahay 8 aroornimo ama 8 subaxnimo. Waayahay ayay tiri, waanan kuu imaanayaa hadduu eebba raali ka noqdo, ayay tiri gabadhii. Sidaas ayayna sheekada kusoo koobaynaa. Waqtiga ayaa nagu dheeraanayo asxaabteyda qaaliga. Qaybtaan intaan dib uga sii kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa walaashiin Deeqo. Caafimaad fiican ayaan idinkaga tegayaa iyo cimri dheer, maasha Allah. waa walaashiin Deeqo, janalkaygana waa Deeqa Xina. Marka subscribe-ka, like-ta iyo share-ta, commentiga intaba dhiirigelin noo tahay. asxaabteyda qaaliga hanaga iloobina. Intaa qaybta ku xigta idinkaga soo gudbinayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.